ama qaranka waxa tiraahdo anagu SSC baan la tartamayna oo waadax cadeeyade oo di SSC maamulka la dagaalamayna xukuumadda Soomaaliland wali waxay aaminsantahay in dib u heshiisiin dhacayso magaalada Laascaanood soo noqonayso ciidanka SSP da waxaan ku dhiis baa wuxuu noqday wax loo yaqaan business shop waa laftirkooda laga ganacsadaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kulanti wacan saaxiib soo dhawaada oo mar kale iyo muuqaal kale oo barnaamijka la fadhiya halka dadka daawanaysa Buurla Media iyo Xamdi Cabdilaahi caawa barnaamijka iyo page-ka waxa martino waa Cabsimed ku soo dhaweynay walaalo waan dhawahay walaalo Xamdi aad baad mahadsantahay Cabsimed waxaan doonayaa su'aal ku weydiiyo soo aragtaa caadi su'aalahaas waxay ku saabsan yihiin maalmo u dambeeyay waxaanu arkaynay dawladda iyadoo xukuumadda maxay Soomaaliland ay leedahay waxa la qaramaynaya ciidamada madaniga dadka waxaan arkaynay ciidamada madaniga iyo beelaha ciidamadaas leh oo ciidamo kale oo cusub sameynaya soo aragtay bismillaahir rahmaanir rahiim orda sidaa sheegtay su'aashaadana ka muuqata xukuumadda Soomaaliland yaabaha waxay weydiiyay in la qarameeyo ama ciidanka qaranka lagu daro ciidanka madaniga la qaado oo loo geeyo ciidanka qaranka way ka mid noqdaan ma aragtidayda siday tahay anu siday tahay baan kaga jawaabaya aragtiyaa wax la isku biirbiiriyo horta laakiin sida kalluunku biyaha ugu baahan yahay ayay ciidankana ugu baahan yihiin maanta inay ciidanka qaranka ka mid noqdaan sababtu waan ku sheegaya horta oraaga jirta oranaysa wax loo yaqaan national army wax loo yaqaan national agenda in ciidan qaran la dhisaa waa ajenda qaran ma ajenda siyaasiya institutionada hay'adaha muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay inuu helo hay'adii ka taageeri lahaa amniga qaranka oo difaaciisa ka taageeri lahaa qarankani qaran buu ahaa horta qarankani runtii dagaalo badan uu soo galay khalkhal uu soo yimi state finance uu dhacay clan finance uu dhacay intuba uu dhacay laakiin haddana waxa ka weyn muhiimadda ugu weyn waxay tahay in ciidanka madaniga lagu daro ciidamada qaranka waajib sababtoo ah qaranka anigu markaan qofka muwaadinka ah xaq wuxuu leeyahay hay'adii difaaci lahayn inuu helo laakiin waa shuruudaheeda la helo qarankii ciidamadii qaranka maxaan ku radaa mooraligoodii baa niyad jabay maalintii halka maxaan ku radaa ay ka dagaalamayeen magaalada Laascaanood sidii ku asaasmeen oo ganacsi ciidanka madaniga markii ciidanka qaranku maxaan ku radaa ay awoodoodii maxaan ku radaa iyo mooraligoodii hoos u dhacay ay ciidankan madaniga ah dhismeen oo halkii booskii galeen ciidanka qaranka marka muwaadinkii haddii xukuumadda iyo siyaasadda isbedesho ciidankii madaniga halay wax lagu darayaa ciidanka qaranka sida anigu qarannimada iyo caadiga ay tahay haddii loo eegayo waajib in maxay ku radaa ka mid noqdaan ciidanka qaranka haddii xukuumadduna maxaan ku radaa ay la imanayso qorshihii ay ku dhisay xukuumaddu ay leeyahay qorshiyahay muwaadinka ku difaaci lahayd intaas ma oga intaas ma ciidamada madaniga su'aal kale ku weydiiyo waxay ku yimaadeen oo lagu asaasay baahiyaha shacab saynu arkanayno muuqata shacabku inta badan kuma qanacsanin ciidankii baahida ku yimi waqtigan la qarameeyo iyadoo baahiyaadkii waqtigaas ciidamada lagu asaasay wali taagan yihiin oo aanay wali wax baabayahayn ama tigi sidee bay dawladdu ku qancin kartaa shacabkan ku qanacsan ciidamada madaniga adigu hawlaha marka laga kala yimaado shacab horta imika dib u habeynta yaa sameeyay dawladda sameysay waxana qaranka u taalaade haddii xukuumaddu qorshe dhammaystiran oo la timaado anagu maanta muwaadiniinteena waxaynu ku difaacaynaa qorshe dhammaystiran oo maanta muwaadinku wuxuu helayaa la soo celinayaa haykalkii hay'adaha dawladda ama institution wax loo yaqaan security hay'adaha amniga qaranka ka taageeray waliba difaaca ka taageeray oo ay qorshe halkaas soo bandhigto si cad u soo bandhigto maxaa diiday in ciidankan madaniga ay ciidanka qaranka ka mid noqdaan adduunyada horta mid baan ku sheegaya hal mid qodob ogow dawlad sideeda u taagan oo rasmi oo dala ama hal aqoonsamo la aqoonsane laba ciidan ma yeelan karo waliba laba ciidan difaac ma yeelan kara hal ciidan difaac ma yeelan kara kaasaa dawladdu diiwaan gashan kaasaa systemkiisa maray laakiin haddii xukuumaddan ay la imanayso waan ku haddii qorshihii ay ku difaacisay maxaan ku radaa muwaadiniinta halka maanta ciidanka Laascaanood laga soo saaray waan ku tirinaya bal waxyaabo dhacay dhacdooyinka dhan baan ku tirinaya maanta ciidanka Laascaanood laga soo dayay halka ciidanku niyad jabay ee gooja cadda la keenay ee inay yar halka maxaan ku radaa bariis iyo qaadi wuxuu doona ku sugayay lahaa halka ku sugnaanta ciidanka qaranka ee state bulaka ciidanka qaranka dagaalamayay ee ciidanka qaranka ay mooraligoodii niyad jabeen bedelkoodu waxa galay ciidankii markaa ka yimaadeen ciidankan madaniga Soomaaliya xukuumad ahaan siyaasad ahaan xukuumadda waqtiga jirtay way isbedeshay ma siyaasadii qaranka si ciidankii loo soo kaabo orta dhigayso marka la dhisayo oo wax loo yaqaan building peace marka laga hadlayo wax loo yaqaan building state marka laga hadlayo ma building state ka horeeya mise building peace ka horeeya nabad dhisidda qaranka ba horeeya nabad dhisidda maxaan ku dhahdaa waxa horeysa nabad haddii nabad la helayo eeg nimankaas iska tago oo iyagu Laascaanood iyo magaraas halka hawlaha iska tagay laakiin imika waxa jiray imika meelihii ay la deganaayeen dhulbaanta hadda afku ku sheegnade meelihii xadka dhulbaanta kala lahaa beelaha saaq buu ay yiraahdeen dhamaantood waa reer guuraa Soomaaliya dadkaas waa reer guuraa reer guuraaga way soo weerarayaan dhulbaantana maanta ma ogoon waxay leeyihiin anaga waxba naga maamul goboleed baan doonaynaa oo waxaan la dagaalameysaa muwaadiniin reer Soomaaliland yihiin ma garad marka sida wax lagu wadaan ma fahmaye laakiin ciidanka hadii la qarameeyay waa waajib waa koow in muwaadinkaasina uu helo maxaan ku radaa difaac qaran
وواجب وواحد تكسبير وهيدا واحد عشور بحيه واي محن عشور بحيه واحد شروطها ما هو ku dooranaya hadii xukuumadii ba amniga kafaala qaadi karin magacaan SSB oo ku sheegay horta run baa jira waxa jira niman meelahan ka hadlo loo yaqaano ixtisaamka oo dadka qaar dhaliilaan waxay leeyihiin nimanka ixtisaamka inta badan waxay ku doodayaan anagu de qaran baan dhisno xukuumadda Soomaaliland baan dhisno 19 baan dhisno ciidan qaran baan dhisno hay'ad dawladeed baan dhisno nidaam dawladeed baan dhisno capacity-ga saan doona wax ku soo dhisnaa wadaha waxaan doona ku soo dhisnay kuwa soo dhisay muwaad kuwa dawladda qaranka dhisay de iyagu laftirkooda iminku way ka soo horjeedaan Soomaaliya ciidankan maxaan ku dhahay markii ciidanka madaniga iyo xaaladahan imika jira way ka soo horjeedeen ciidankan madaniga laftirkiisu wuxuu noqday in laga ganacsado waxa ka ganac horta ma dhageyso ciidankan madaniga laftirkiisa niman madax dhaqameeda iyo niman iska dhalinyaro waxay doonaan baa sheegtaan ayaa ciidankan madaniga maxaan ku dhahay lacag iyo qarashaad ku qabo waa kuwa imika wali ordayay lama qaramay karo ciidanka qaranka ma mid noqon karaan waa kuwa wali leh marka in ciidanka qaranka ay ka mid noqdaan maxaa diidaydi marka cabsida waxaad leedahay dadkaas aad tilmaantay ama ixtisaamkoodayaasha qaar kamid ah noqdaan madax dhaqameedka ama dhalinyarada meesha ka dagaalanta ha noqdaanba maxaad leedahay iyagu dhaqaale gaara ay ku qabanaysaa darteed baan doonaynin ciidamadii la qarabeeyo ha waa laba qolada ixtisaamkoodu dagaal iyo wax noocan nabad bay doonaysaa oo oo taas waa mowduuc kale oo si kale ugu hadli karaan qolana waa qolo kale magaca SSB da waxay ka dhigatay maxaan ku dhahdaa business ganacsi adduunka meel kasta oo dagaal Soomaalida ka dhex dhaco ciidan baa faa'iidadii imika ciidda faa'iideysa waa ciidda ama madax dhaqameedka sheegata ama dhalinyarada sheegatay anagu waxba nagama gelin taas mawduuceedii laakiin ciidanka qaranka ka mid noqda ciidankan madaniga ah anu aragtidayda iyo siday tahayba waa inay ka mid noqdaan waajib haday ka mid noqon waayaan aniga waxba igama gelin oo daanu ninka intaan soo kaxeeyay daanu janad ciidana ma dawladda kuma jirey hay'ad difaac qaran ma yihi madax dhaqameedna ciidanka kuma taliyeen ma yihi anu deegaanada lagu dagaalamay mid kamid ah ka soo jeedaa waxay dadku la qaban baan la qabaa laakiin sida caadiga waadax markan ka hadlay waxa weyn ciidanka ka mid noqdaan ciidanka madaniga ay ka mid noqdaan ciidanka qaranka way asmido dharkeen hadii lagu adkaysto oo beelaha naga soo horjeedo ku adkaysteen la aaso meesha laga saaro la baabiyo adigu maadaama reeraha meeshaas deegaanka ulaad ka mid tahay laakiin sidoo aragtaad warintaas hadaan ku raada xaafada ka soo horjeeda xaafadiina baabiyo si cagaf gelinaysa ka hor dadka lugaha ka guur meed ka guuri kartaa deegaanka iskama guuri karo suuragal xaqi suuragal ka waligeed baan suuragal ahayn mana noqon doonto mana noqon karto laakiin ciidamada laftirkooda waa lagu heshin karaa meel la kala geeyeen karo laakiin magaalo baabi lagu heshin karaa wax suuragal ma taas way cabsimadow boqorkan san wada ognahay waxa weeye goob imika dagaalka caan ku noqotay waana goobtii ugu horeysay keentay baahiyaadka ciidanka madaniga in loo aasaasay SSB la sameeyo waqtigan san ognahay waxa la sheegay nabadgelyada Soomaaliland iyo beelaha naga soo horjeeda ay maxay lambar 1 u noqonayso iyada boqorkan meesha laga saaro oo la baabiyo deegaankaas sidoo aragtahan wallahi de horta heede warkii bariyahan ba odayaal shisheeyo iyagu ku dhowda nabadda si guud uga shiriyay xagan iyo xagan baa noqotay laakiin ama boqorkeen noqoto ama qurugada noqoto ama laasacado cirgaaba noqoto meesha doontaa noqotay anigu sida kaliyan haya waxa weeye hadii nabad dhameystiran la helayna ahlan wasaalan sida doona waa lagu keenay ama dagaal lagu keenay ama colaad lagu keenay ama wada hadal lagu keenay ama dib heshiisna lagu keenay sida doontaa ku timaadee boqorkeen oo kaliya eegan hadii boqorkeen maanta heshiiso si waadax loo heshiiyo qurugud meel xaaladda ku socoto ma noqonayso sababtoo dagaaladu way saameynayaan marka anigu tan boqorkeen aragtiyo kale gaaban baan u arkaa hadii ila cirif ay wax ka dhalanayaan dawtaas waa aragti waadax oo maanta waa ahlan wasaalan hadii kale laakiin taa boqorkeen aad soo qaatay gaarka taa wax la soo qaato wayna haynba way cabsimadu aad bad maasantay waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijka hadii aan ku raado cid fariin u dir yaad fariin dir lahayn horta in kasto waanta horta bar kasto horta fariintan direen waxa weeye labada dhinac baan u diray waxa weeye madreelo hortaniyow isku indhameedoobanayo isku indhabeelayo de dagaal muddo dheer inaga soo socay horta mid baan ku sheegaya intaan fariinta hadii mid baan doonaya horta nimanka dhulbaantay intaan ka warhayo horta nimanka ciidan beeleed ka dhulbaantay lagu ciidan beeleed wixii isku noqdeen qarankiina waxaan mooday inuu SSB la tartamayaba inuu SSC la tartamayaba nimanka dhulbaantay horta madax dhaqameed xog farog ma jiraan niman siyaasiyiin ay ku sheegaan bay nimanka dhulbaantay sheegtay inay gacanta wax ugu jiraan qarankiina de waa adigan arko maanta SSC buu maanta aad moodaa inuu la tartamayo waxaana 7 casho ku soo xidhay lahaa qarankow ama waxa tirada beela islaynaya oo ciidankan qaranka waxba yar islayno ciidankooda sida loo daayo sida sheegay loo daayo ya oo sida loo daayo ciidanka qaranka ciidanka midaniga sida loo daayo ama ciidanka ama qarankow de 7 casho waxaan ku soo afjari lahaydeen de 7 casho waxaan ku soo afjara anu fariinta idin diray waa taas kaliya idin diray soo gaarsiin karay waa taas allahumma balaqtu soo gaarsiin xaaladda colaadada dheeraatay bad leedahay soo afjari karay soo afjari karaysa wallahi baanay 7 mir ku qaateen xukuumadan laakiin wadiga arko beejadkooda waxay ku baayso Soomaaliya waxaad moodaa wali riiskiga jirta
nooc kala waa nimankan imika maanta iyagu maanta iyagu waxay aaminsan yihiin si ay maamul goboleed ku heli lahaayeen adiga waxay aaminsan tahay beelo Soomaaliland inay kamid yihiin iyo say u dagaalamayaan waad aragtaa oo gebiga idinkii baa tartamaya oo tartan baa idinka dhaxayeen moodaa ama de waxaana beeshashka ku soo qoraysaan haddaad waxay leeyihiin beelo kamida magaca ku abtirsadaa soo weeraray qaar kamid ah ciidamada qaranka way istifaaceen Soomaaliland Axmed inay nidaamkii ruushka u dagaalanto adduunka cidina cid iskaba weerarska ma sugtay waxaana soo afjaraysan ila qaran bidahay ka dhigay waa fariintan diray intaas waa fariinta la isugu jirtay wax sheeg bad iyo odaytinimada aad baad maasantay walaal